الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومدرسة محمد صلى الله عليه وسلم أو إن له صومالاي وكاليا نحلك الرسول كان صوبا صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا له الصومالية meel walbo aad joogtaan allah idin dhowro. dhulkeeni hooyo berisamaadkii allah ku soo celiyo, amnigiisa iyo ammaankiisana allah sugo. waa barnaamijkeeni taxanaha ahaa ee dhaxalkii rasuulkeena suuban salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi. xalay waxaynu soo qaadanay alwafaau bilcahd, ballanta oo la oofiyo. caawana sidoo kale halkii ayaynu kasii ambaqaadeena hadduu ilaahay idmo. kun wafiyan maca allah, ilaahay wafi u ahow. yacni gacanta wanaagsan iyo wanaagga ilaahay uu kuu geysto ee uu ku siiyey iyo nicmooyinkan uu kugu daday, mid guda noqo, mid ka shukriya noqo. ilaahay subxaanah waa ilaahana abuuray, waa ilaahana irsaaqaya, haddana waa ilaaha quruxdan inoo yeelay, waa ilaaha nooga duway xayawaanka, caqliga nooga duway, waa ilaaha isagoo aanan naga hakranin nicmooyinkiisa oo dhan dusheena yeelay. mid ka mid ah nicmooyinkaa waxaad ogsoon tihiin addoommadii allow in adduunka iyo waxa saaran aanay goyn karin. xubnahan qaaliga ah 360 ah ee ilaahay jirkeenna uu geliyey, mid ka mid ah adduunka iyo waxa saaran ma goyn karo. way ka qaalisan tahay. wanaaggaa laynoo geystay seenu u gudnaa marka? sideenu ilaahay wafi ugu noqonaa? waa marka hore walaalayaal, marka hore waa taacadiisa, inaynu ateecno ilaahay. ilaahay waxna wuu ina farayaa, waxna wuu inaga reebayaa. maxaa la doonayaa xaalkeenu inuu ahaado? halku dhigeenu noqdo samicnaa wa ataacnaa. khalaas, waanu maqalay, waanu ogolaanay. laakiin niqaash iyo faaqidaad iyo ictiraad iyo inaynu ka keenno maaragtaye aanu hor istaagno, dood inaynu ka keenno, muran inaynu ka keenno, taasi waa min calaamaati lmunaafiqiin waay. laakiin muminiintu waa maxay? inama kana qawla almu'miniina ida ducuu ila allahi warasuulihi liyaxkuma baynahum an yaquluu samicnaa wa atacnaa. haddii muminiinta loogu yeero ilaah iyo rasuulkiisa, in yani xugun alle iyo rasuul haddii loogu yeero, dhan alleba haddii loogu yeero, ilaahay wuxuu yiri, rasuulkiisu wuxuu yiri sala allahu calayhi wasalam, haddii la yiraahdo xaalka muminiintu waa sidee? samicnaa wa ataacnaa, waanu maqalay warka alle iyo rasuul, waanu maqalay, waana ogolaanay. waanu ogolaanay. kaasaa la yihahdaa muslim, kaasaa la yihahdaa mu'min. tan labaad, taas waa taacadi weeyaan. tan labaad waa cibaadadiisa. ilaahay xubnahan uuna siiyey, waa inaynu ugu shaqaynaa isaga. ilaahay ujeeduu kuu sameeyey. waa maxay ujeedada lagu sameeyey? ujeedada lagu abuuray, wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun. jin iyo insi uma aanan abuurin ilaa inay i caabudaan aniga maahanin. inay i caabudaan baan u abuuray. cibaadaan laynoo abuuray.
cibaado cibaadadu ma wax weyn ba? wallahi maya, yaani nala weynaanin. cibaadada diinteenu way fududaysay, waa wax walba oo aynu karno. laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha, inta ay karto unbaanu saarnay. weliba inta aad kartay ayaa haddana lagaasii mararka qaar maaragtay lagaasii dhimaya oo lagaasii fududaynaya. waajib ilaahay ma samaynin ilaa sunnuu sameeyey, ilaa ruksuu u sameeyey. haddana ilaahay aad buu noo jecel yahay. diinteenuna walaalayaal aad bay u fududahay. eeg aan kuu fududeeyo, cibaadada keliya waa uun hal saac ayaa lagaa rabaa. hal saac. maxaa yeelay eeg saacaddii tagtay adigu ma lihid. malaa'ig bay gacanta ugu jirtaa, waa la qoray. afcaashaada iyo aqwaashaada waa la qoray. saacadda soo socotaa inaad gaaraysid ma ogid. marka waa maxay cimrigaagu? waa saacadda aada nooshahay. saacadda aada nooshahay keliya ayaad adigu leedahay. halkaas saac ilaahay baan ku dhaariyay addoommadii allow soomaalay, indheheenna iyo dhegaheenna iyo afkeenna iyo gacmaheenna, lugaheenna, qalbigeenna, yacni aqwaasheenna iyo afcaasheenna maka adkaan la'nahay. hadalkeenna iyo ficilkeenna hal saac keliya. hal saac baa lagugu ammaanaystay, hadalkaaga iyo ficilkaaga waa hal saac. ilahay baa idinku dhaariyey. waa kii caaqilka hal saac ilaalin la amaanada aqwaasha iyo afcaasha, hadalka iyo ficilka waa hal saac keliya. saacaddaa markaad ilaalisidoo ay dhammaato saacad kala imanaysa, haddana saacadaasaad ilaalinaysaa. saacadaasaad ilaalinaysaa. wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun. cibaadada waa halkaas saac keliya oo aad ilaalisid aqwaashaada iyo afcaashaada keliya. ta kale waa tawxiidka ilaahay. ilaahay inaad waxidid. ilaahay waa waaxid. cibaadada ilaahay u kali yeeshid, oo aadan la wadaajinin hayrkii inaadan ilaahay wax ugu darin. ilaahay aad u barax tirtid cibaadada, taasaa lagaa rabaa. maxaa yeelay eeg ilaahay inuu hal yahay, rabbigeenu yahay. goormaynu ballantaa qaadnay ma taqaanaan? waa fi caalami dhar. waa uu nafafyaalka la abuuri doono ilaa qiyaami saaca ayaa aabbaheena aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam dhabarkiisa inta laga soo saaray ballantan laga qaaday. alastu birabbikum, miyaanan ahayn rabbigiinii? alastu birabbikum qaaluu balaa, waa tahay bay yidhaaheen. laakiin naf walba markii la abuuray ballantaa ma xusuusan tahay? maya, ma xusuusna. laakiin si loo xusuusiye maxaa loo soo diray? rusul ayaa loo soo diray fara badan. qoom walbaana rasuul afkiisa ku hadlayaa loo soo diray. allahu akbar. si loo xusuusiyo. eega ilahay baad ku dhaariyey. waa ilaahay wuuna abuuray, isagaana irsaaqaya, isagaa haddana maslaxadeeni adduunya ilaa iyo tii aakhiro wax walboo aan nahay iyo baahideena isagay ku tiirsan yihiin. ilaahay isagaa diyaar haddana inoo ah. isagaa rasuul noo soo diray si ballantaa aynu qaadnay waaga uu noo xusuusiyo, si aynan cadaab u aadin oo laynoo xusuusiye ayuu rasul u soo diray. haddana waxaasoo dhan waxaa la rabaa ilaahay subxaanahu watacaala inaynu u gudno wanaagga faraha badan, nimcada faraha badan, fadliga iyo dheeraadka ilaahay uu nagu manaystay ayaa waxaa loo baahan yahay in aynu gudno. eeg ilaahay isagoo qaar ka mid ah xubnahan iyo nicmooyinkan uu nagu daday qaar ka mid ah isagoo noogu mana sheeganaya. waa ka uu dhahayo subxaanah, wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shaya. ilaahay uurka hooyadiin wuxuu idinka soo saaray idinkoonan waxba garanaynin. alif walaa ba, zero idinkoo ah oo aynan waxba aqoonin ayuu ilaahay idin soo saaray. muluq ah aan waxba qabsan karin. wajacala lakum asamca walabsaara walafidata. wuxuu idin yeelay dhego aad wax ku maqashaan, indho aad wax ku aragtaan, iyo qalbi weeleeya wax walboo aad aragtaan
wax walbo ma aragtaaye aad maqashaan qalbi idin kaydiya. kayd kaasafoorta ayaa halkan khasnad ayuu idin geliyey, wax walbaba ma aragtaaye idin aad ku kaydsataan oo idin qaada. lacalakum tashkuruun, in aad ku shukrisaan ilaahay allah. mar kalena uu leeyahay qaliilan ma tashkuruun aw qaliilan ma tashkuruun, waxa aad u yar inaad ilaahay nicmooyinkan faraha badan uu idin siiyey inaad ku shukrisaan. keenee ku shukriya, ilaahay baan ku dhaariyey, keenee ku shukriya nicmooyinkan faraha badan. ya marka qof insaan ah uu shay yar oo xaabo adduunye ah agtaada ku weyn markuu kuu hibeeyo arooskaaga ama dhalashadaada ama ma aragtaa waqtigii farxadaada aad wax imtixaano baastay ama aad camal wanaagsan samey uu kuu hadiyeeyo, miyaad halmaamaysaa? intee jeer baad u sujuudaysaa? intee jeer baad hagaraynaysaa? intee jeer baad ma aragtaa sheegaysaa oo aad xusuusnaanaysaa? ilaahay baan kugu dhaariyey. ya haddii daayar gollanka iyo laabtaad gashanaysaa sow maha. ilahay baan ku dhaariyey, eeg nicmooyinkan eeg. ma siisan lahayd addoonkii allow hal il ah oo indhahaan quruxda badan ee aad wax ku aragtid? ya ma siisan lahayd 100 milyan? ma siisan lahayd? haddii lagu siiyo ma ku gadan lahayd? aragtida ha lagaa qaado, isha haysaga taalla meesheeda, laakiin aragtida ha lagaa qaado 100 milyuun baa lagu siinaa, ma yeeli lahayd? maadan yeeshan. cashan waxaad ogsoon tahay 100 milyuun ya iyo ishaada inay qiimi badan tahay, siduu ilaahay kuu hodmiyey eeg. bal ishaada iyo dhegahaaga iyo xubnahan qaaliga adduunka oo dhan bay ka qiimi badan yihiin. so waxaad haysataa wax ka qiimi badan adduunka oo dhan. yaa ku siiyey, yaa ku siiyey alle. ma ku shukrisaa? ma uga mahad celisaa? nicmadiisana waad ku naaloonaysaa, nicmadiisana waxbaad ku arkaysaa, ood ku dhegaysanaysaa, ood ku hadlaysaa, ood wax ku qabsanaysaa, ood ku soconaysaa. keyrkiina waad sheegaysaa soo maha. keyrkiina laabtii gollankaad gashanaysaa, keyrkiisina waad ammaanaysaa soo maaha. taasi waa jazaarnimo, waa min calaamaati lmunaafiq. waxaa lagaa rabaa marka dhaxalkan caawa madarasadu ay nagu gubaabinayso waa in gacanta wanaagsan ee ilaahayna siiyey nicmada ay fadliga in aanu celino ayaa loo baahan yahay. wanaaga in aanu wanaag kale ku celino. alle wuxuu leeyahay wahal jazaau lixsaani ila lixsaan. wanaaga abaalkiisu waa wanaag kale. eeg ilaahay baa idinku dhaariye. ya haddana nicmadan aanu celinaynaa ee aanu wanaageedu gudaynaa, wallahi ilaahay inaanu waxba u qabanaynin, annagaa ku badbaadayna. nicmadana annagaa intifaacayna, celinteedan aynu celinaynaa gacanta wanaagsan inagay noo soo noqonaysaa. ilaahay uunka oo dhan, jinnigiisa iyo insigiisa, waxa isaga ka soo haray oo dhan, inta samada joogta iyo inta dhulka joogta, 7 oo dhan, ilaahay haddii ay wanaag sameeyaan oo ay ku shukriyaan, ilaahay waxa waaye cizigiisa iyo sharafkiisa waxba u kordhin mayso. ya haddii intaasoo dhan ay ku caasiyaanna, haddana mulkigiisa, cizigiisa iyo sharafkiisa waxba ka dhimi mayso, iyo wanaagiisa ilaahay. soo ma ogidinta? marka waa maxay? ilaahay wuxuu leeyahay waman yashkur fainamaa yashkuru linafsihi. qofkii ilaahay ku shukriyaa, gacantaa wanaagsan iyo nicmadan lagu daday ka mahad celiyaa, isaga unbay u noqonaysaa, ilaahay waxba u tari mayso. waxaa lagugu tirtirsiinayaa, war nicmadan annagaa ku siinay, annagaa kugu dadnay, fadligan iyo dheeraadkan waa xaggeenne, ma aragtaayay kasoo mahad celi, haddana aanu kuu ziyaadine, aanu kuu kordhine. ya lain shakartum laaziidannakum. haddaad ii mahad celisaan, nicmadan aa idin siiyey haddaad gacantaa wanaagsan soo celisaan, waan idin kordhinayaa buu leeyahy ilaahay subxaanahu watacaala. in axsantum axsantum lianfusikum. haddii aad wanaag samaysaan, yaad u samayseen? ma ilaahay? waxba u kordhin mayso ilaahay, bal nafsadiinaad u samayseen. allahu akbar. marka maxaa loo baahan yahay walaalayaal? nicmooyinkan in aanu celinaa loo baahan yahay si ilaahay noogu kordhiyo.
nicmada indhaha inaynu ka shukrino si ilaahay nuurkeeda u siyaadiyo, nicmadan dhegaha iyo maqalka inaynu ilaahay oga mahad celino. mahad celiskuna waa maxay? inaanu ogaano nicmadan inuu ilaahay leeyahay wadiifadii iyo shaqadii iyo hawshii loogu talagalay oo ah khayrka in lagu dhegaysto, ya oo ilaahay lagu raaligeliyo waa in lagu qabtaa. afka sidoo kale haddana ya nicmadiisa see looga shukrinayaa? ilaahay wax raaligeliya maahan, wax kale waa inaan laga soo bixin. dikri ilaahay, ilaa dikri baa loo sameeyey. hadalka in la wanaajiyo, waquluu linnaasi xusnan, maaha in lagu caytam, maaha dadka in lagu xanto, maaha dadka in lagu aflagaadeeyo, ma aha buuqi fawdi iyo maaragtay shobar in lagu sameeyo. caawa madrasatu maxamed dhaxalkan xabiibka salawaatu llahi wasalaamu caleyh ee aynu kala tegaynaa waa maxay? waa intan oo nicmo ah ee ilaahay nagu daday, ya in aynu celino, inaynu ogaano xag alle inay nooga timid, kadibna gacantaa wanaagsan aynu ilaahay u celino si ilaahay noogu kordhiyo. haddii aad igu shukrisaan waan idin ziyaadinaya, allah dhahaya subxaanahu watacaala. marka yanan ilaawin xubnahan qaaliga inaynu ilaahay aanu ma aragtahay wanaagaas inaan ilaahay u celino, inaan ilaahay uga mahad celino, inaan shukrigeeda aanu la imaano, oo weliba aynu ogaanana in shukrigan ilaahay aanu waxba u qabanaynin, laakiin shukriga annaga uu noo soo noqonayo, wanaagan inuu annaga noo soo noqonayo, ilaahay inuu noogu kordhinayo. mideeda labaad caawa waxa weeyaan alwafaau maca alxabiib sala allahu calayhi wasalam. rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam ku salli xabiibkaaga, ku salli sala allahu calayhi wasalam. in badan ayuu soo daalay, in badan buu daalay, in badan buu taahay, in badan buu maaragtay hurdadii ka tegay, in badan bay caguhu barareen, in badan buu haraaday, in badan buu gaajooday, in badan ayaa dartaa loo dhibay. diintan quruxda badan, iimaankan wanaagan inuu kusoo gaarsiiyo, ya inuu kusoo gaarsiiyo sala allahu calayhi wasalam. maalinkii oo dhanna wanaag buu fidin jiray, habeenkii oo dhanna dadkii uu maanta oo dhan uu daba socday ayuu ilaahay u baryi jiray. isaga nafsadiisa wuu ilaawi jiray rasuulka sala allahu calayhi wasalam, ya wuu ilaawi jiray. ilaahay wuxuu u baryayaa waa dadka, dembigaagii waa la dhaafay, kii hore iyo kii dambe ayay leedahay caaisha, umuna caaisha radia allahu canha wa ardaaha. ya dembigaagii hore iyo kii dambe waa la dhaafay. maxaa cagaha bararka maxaa keenay? naso oo seexo, maantoo dhan baad qoraxda ku socotay. marka ay dhahdo wuxuu dhihi jiray afalaa akunu cabdan shakuura. haddii ilaahay dembigaygii hore iyo kii dambe uu dhaafay, ya wanaag gacantaa wanaagsan soo inaan celiyo ma aha. abulwafaa, allahu akbar, abulwafaa, ya aabbihii gacan celiska wanaagsan. isaga aabba u ahaa. maxaa wacay? wuxuu ku dayanayaa waibraahiima aladii wafaa. aabbihii ibraahimkii wafiga ahaa ku daya waa kala leeyahay. sidaasaa inaga oo dhanna la doonaya inaan uga dayano. ilaah haddii dembigaygii hore kii dambi u dhaafay ma iska fariisanaya, ma iska seexanaya? maye waa in inta noloshayda ka dhiman, ya maalinkiin aan dacwo u taagnaadaa, aan adeega dadka u taagnaadaa, cibaadadiisa u joogaa, habeenkiina waa inaan ilaahay ma aragtaye aan u istaaga oo aan barya oo aan isu bihinbihiya oo aan u ooyaa. taasaan weliba intaas xataa rasuulka ma hubo in uu gutay ilaahay wixii uu siiyey nicmadiisii. laakiin dee qofka waa inta uu karo un, fattaqu llaha ma statactum, ya inta aa kartaan un ilaahay ka baqa. laakiin rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu sameeyey yani ya dadaal aanan runtii isagoo kale aan la arkin ayuu sameeyey. marka rasuulkaaga sidaa kugu soo dadaalay, diinta kuusoo turxaan bixiyey, oo lafihii kaaga saaray iyadoo macaan ya oo salis ah ku siiyey, ya maxaad ugu abaalgudday? maxaa lagaa rabaa? ya waa inaad raacdaa, waa inaad uswa ka dhigataa, waa inaad ku dayataa rasuulka, waa inaad jeclaataa, barataa siiradiisii. qul
ayaa la dhahaya. in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah wayagfir lakum dunuubakum wallahu gafuuru raxiim. allahu akbar. haddaad jeceshihiin alle, so ideelkiin ma sheeganayno jacayl alle inaan ilaahay jecel lahay. ya waxaad ku tiraahdaa haddaad jeceshihiin alle subxaanah isoo raaca aniga ku dheh. ha raacidda rasuulka ayaa waxay cadaynaysaa in ilaahay aad jeceshahay. maxaa yeelay markaa raacdid yuxbibkum allah, markiiba eeg ilaahay wuu ku jeclaanaya. jacaylka maxaa ka dambeeya? dembigaagiina wuu dhaafaya wayagfir lakum wallahu gafuuru raxiim. allahu akbar. ya marka waxaa laynaga rabaa rasuulka haddaan doonno in aan awfiyaa u noqono, in gacantaa wanaagsan iyo dadaalka uu noo sameeyey in aan xusuusanno, qalbiga keliya maahe waa inaan raacnaa. waa inaan raacnaa. ko waa inaan akhlaaqdiisii, ya akhlaaqdiisii waa inaan anagana akhlaaq ka dhiganaa. siduu u dhaqmi jiray aanu u dhaqanaa oo aanu ku dayanaa. laqad kaana lakum في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله أكبر. يا رسولك كدهشة إذن كوسوغن وناكسن أدوغو سفر كاغا إيو حضر كاغا جوغتان كاغا إي بحيتان كاغا جيف كاغا إي جو كاغا هذا كاغا إي فعل كاغا هر إي هبين. يا وأين الإساق كدهتا رسول صلى الله عليه وسلم. إلهي وحوليه ونكسو قبقبين يا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحو إذن لي ماده يا رسولك قاتا. قاتا وحو إذن لي مد أقواشيسي أفعاشيسي القرآن كان إيه سنة وحو إذن لي مد وحيينك قاتا أو كل نقمة أو فدية. يا wuxuu idinka reebayna ka hara ayaa layidhi rasuulka salawaatu llahi wasalaamu calayh. walaalayaal waa dhaxalli ilaawe, waa dhaxalli ilaawe. waad ogsoontihiinoo insaan un baanu u mahad celinaa. kayrkood alle iyo rasuulka kayrkood ayaanu u mahad celinaa, ayaanu waktigeena siinaa, ayaanu xooggeena siinaa, ayaanu wax walbo wanaagsan aynu siinaa. iyagaasaanu sheegnaa, waynu ilownay nicmadii kale. mana loo baahna. waa dhaxal aynu ka tagnay. dhaxalkaa aynu ilownay ayay madarasadu caawa oo dhan ina xusuusinaysay. ilaahay nicmadiisa, rasuulka salawatu llahi wasalaamu calayhi maaragtay gacanta wanaagsan uu inoo geystay in aynu celino oo aynu ogaano celintaa aynu celinaynaa inaynan iyaga waxba ugu qabanaynin, annaga inay noo soo noqonayso si laynoogu ziyaadiyo nicmooyinka oo ay inoogu joogto ay u noqoto, daa'im ay inoogu noqoto. yaynaan ilaawin aynu nicmadaa ku dhaqanno, aynu ku shukrino, kadibna aynu fidinno. insaanka gaflada kaga jira ee halmaansan aynu xusuusino. waa dhaxalkii rasuulkeena suuban salawaatu llahi wasalaamu calayhi oo uu idinkaga imanayay madrasatu muxamed صلى الله عليه وسلم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.